بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan ilaantiin badda wadayaal meel kasto aad arreeyada ka joogtaanba waa mar kale iyo golihii halabuurka iyo murtida ee Soomaalisaad oo toddobaadkii baanu idinku soo qaadno mid kamid ah halabuurada Soomaaliyeed kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwa dambeba caawana uu marti noogu yahay abwaan da'yar waa Nuuraddiin Xaaji Yuusuf oo ku magac dheer Gacmo ku soo dhawow Nuuraddiin. بسم الله الرحمن الرحيم. بان نقول دوهي مركو روحان سلامي يا دمان بهذا الصومالي ساد ميرول بيجوغان يقاسمه هذا كدب وحن سلامي يا الصومالي ويدل برول بيجوغتا أدينا نقول سلامي يا إلك حسين sidoo kale ayaan ku salaamayna anaguna boqolkiiba boqol wad mahadsantahay Nuuraddiin waxaad iga warantaa bal horta dadku kuma yaqaanin baan malaynayaa bal waxaad noo soo gudbisaa taariikh nololeedkaagii meeshaad ku dhalatay meeshaad ku soo barbaartay iyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhashay horta adaan dhaha aan kula kaftama dadka qaar way yaqaanaan laakiin in kastoo qaarna aysan aqoon laakiin insha Allah haduu leeyahay waas baran doonaa intaan insha Allah ilaahay karim horta waxaan ku dhashay magaalo madaxda Aalto Jubba say u yaqaanaan dadka mise gobolka Bay loo yaqaan Baydhaba baan ku dhashay waxaan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadeedii ahayd Hodan oo meeshii dugsi hoose dhexe iyo saraan ugu soo baxay dugsiga la yiraahdo Bustaale cid taqaana ba taqaanay waka waayahay Nuuraddiin inkastoo halabuurka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u tiro badnaayeen adiga abwaaninta yaryar waxaad kaga duwan tahay waxaad isticmaashaa laba luqadood sida luqadda afka Soomaaliga oo laba laxjadooda sida mayga iyo maxaa tirida oo kale labadaba halabuurkood ku sameeysaa Soomaa waan ku sameeyaa labadaba waxaan u maleynayaa dadku qaar inay ku adag yihiin qaarna maxaa tirigi ay ku adag tahay qaarna may ku adag yahay laakiin insha Allah labadaba waxaan isku dayay inaan wada sameeyo oo aan heerna ka gaaro ilaa iyo heer gabay aan ka sameeyo eeba naqataba ma lagu gabiyaa mayga waan arkay iyadoo heesa macaan lagu qaadayo oo dad badan xataa dadka aan mayga ku hadlin way jecel yihiin heesa mayga balse de ma arkin iyadoo lagu gabiyeeyo sax waa lagu gabiyaa waxaa jira abwaana daaweyn oo kamid yahay nin la yiraahdo Isaaq Abgaalo oo hadeer inuu jooga baan filayaa magaalada Baydhaba oo Kismaayo ahaa ninka uu ku gabi jiray gabiyiisa ornwan ka arkay iyo abwaana kale oo jiraan وسا ومس شعب حنو وايو متك لقري محاتري واحد فذي قرالك وحنو ملاينا برسماي وسيم دب الله قري وحضر بقويا الدكشنري مايا ريب بدن اللي هي وحسده احنا او ما كلا فوق ماي محاتري هدي ليرا بلس قرالك اي خوغها ay ku kala gidsiin insha Allah haduu ilaahay yiraahdo abwaano waaweyn way jiraan oo sidaan ku sheegay Isaaq Abgaalo oo Kismaayo ahaa haddana inuu joogo baan filayaa magaalada Baydhaba asuna aad baan u salaamayaa ka uu kamid yahay dad badan oo ku heeso ku sameeyay waad sheegtay ugu bas waayahay Nuuraddiin aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuuraddiin waxa uu caawa idin soo bandhigi doonaa suuan murti fara badan oo ka kooban labada laxji ee mayga iyo maxaa tiriba tan ugu horeysa ee uu inoo sheegay inuu caawa dadka u soo bandhigi doono waa ta la yiraahdo danta magaalada daayirteena daayirteena maxay ku dhalatay daayirteenu sidee bayse kuugu dhalatay daayirteenu bal nooga waraarintaa daayirteena horta waxaa ka horeeyay gabyo badan oo laba kamid ah labadii hadee waxaan u maleynayaa dib baan u dhigan doonaa kuwa laakiin daayirta waxaan ugu tiragalay xaaladda hadeer uu ku jiro wadanka iyo daayirta dhibka ay loo geysto waayo dadka dirirayo dirirta loo adeegsado waa daayirta kuwa hadeer badaha ku riiqmay oo meelaha ku rafaaday waa daayirtii marka waxaan filayaa in daayirta badanaaba ay dadka dhibaatada hayso inay iyagu yihiin ay u badan yihiin mid xigta waxa ay ugu dhaliyay hadaan u soo dhaadhacdanka waxa ay ugu dhaliyay nin baa bari wuxuu yiri oo adigu dadkan Kenyaanka halkan jooga ayaa wuxuu yiri
sigoo laba oday kale la sheegaysanay waa nin da adigu 85 jir meelaha gabadha ugu adiga ugu dibadneedo la dhigi karo waa gabdhaha ugu ciyaar suuqsan Soomaaliya ayaan la eekeen u dhahay marka saas inay ii fiirisay waqtiga lacagta Soomaaliya aad bay qiimo u lahayd lacag $200 ah baan diyaar u ahaa u dhahay inuu siiyo gabadhaas ay ula seexato markaas inay eegtay u dhahay waraad waxa ninkaan qaabta daran oo la seexan maaye bal iga wada ninkaan marka waan fiiriyo u dhahay waa gabadhii aan dhihi lahaa waa tan ugu liidata ayaa saas ii gashay marka kadib Soomaaliya way burburtay u dhahay dawladii dadku way soo kala yaaceen halkan baan waxaan ku arkay u dhahay Nairobi gabadha badan oo adigu yar oo wax walba diyaar u ah oo dadkoodii ka yimid soo burburay marka waxaan maalin aan la kulmay u dhahay gabar waliba adigu waxaan ku helay u dhahay gabdhihii hadii aan tusaale kaaga soo qaado gabdhihii yaryar 16 jirkii iyo 18 jirkii meelaha ah baa wax $10 ka yar aan ku helay buu saas uu sheegay marka buu ugu soo dhacay horta galaya daayirta waa hagaag muxuu leeyahay daayirteena bal hadayno bilow hadeer waxaan bilaabanayaa gabaygii daayirteena nabadii daboolneed kuwii daaha ka qaaday daabkooduna u ahaa isku duubnideen iyo daacadnimo iyo wanaag dadka loogu adeega daayirteena hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal dhul wada doog ahoo daruurtuna ku hoodhay khayraadku dabiici yahay khayraad dabiici ah dadku ay ku nimcaystaan eebbahood ugu deeqay eebbahood ugu deeqay way dareensan yihiine daayarteenna hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal maskax degan iyo niyad daahir ah maskax degan iyo niyad daahir ah dal lagu dhaqo looga difaaco cadaawaha dantaa bay garan daayarteenna hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal caruur darbijiifa kabarada dugsanayaan shacabkoodii dullaysan ku nool daarihii burburay aad bay inoo damaqdo daayarteenna hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal damiir laawayaasha inoo diirnaxeen iyo umala dooxatada maatida dilaya inaan diidno dalka laga qabta ayay u doodeenay daayarteenno hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal muqdisho daakum laga dhigay dadkeedii dariiq walba meydadku aad u daadsan yaho dhaawaca daweyn iyo dabiib loo helayn dhaqaartiirtu ka daashay kuwii dembigaa galay kuwa deerii weeye daayarteenna hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal guryo wada dumo madaafiic duqayso bulkeetigii daatay dabka ka baxayana dowladaha ku teesan ay wada daawanayaan dulmiga xadaafka ah kuwa diida weeye daayarteennu hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal tusbax duntii go-day lama daba qaban karaaye sidaa dadkii laga dhigay duqowdoodii la laayo wax daryeelana waayey daris aan loo diirnaxayn kuwii ka damqada weeye daayarteennu hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal daayarteenna hadeer doorka ay ku jidhaan hal loo daayo walaal nabadaan la wada doonay in la daadaheeyo nacabka daba taagan dandaradii xumaanta dusha inagaga raray kuwaa dollar ku qaatay
kuwa dib u baadhay dabagalay su-aasha daraasaad ku sameeyey weeye da-yarteenu hadeer doorka ay ku jidhaan ha loo daayo walaal. da-yartii in badan dayuuraday raaceenoo daafaha adduunka qaarba dacal aado qaxooti baa la doonaa kuwii doonyo raacay baddaa lagu daadiyo yaxaas deeq looga dhigay kuwa diida weeye yaxaas looga dhigay waa kuwii ka damqadee da-yarteenu hadeer doorka ay ku jidhaan ha loo daayo walaal. ummad isku diin ahoo daaq wadaagto dabuubka hadalkoodiiyo diirka midibkooda aan waxba doorinoo daacad u ah dhaqankoodiiyo midabkooda dahabka ah